waa hooyo dhibaataysan ninkeeda ayaa ka xanuunsanaya muddo badan ayuu ugu xidhnaa guriga dhexdiisa. waxay degan yihiin qoyskani magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadaha Jungalka. hooyadan waxay leedahay waxaan ahay hooyo danyara ubad yar ayaan haystaa odaygii ii shaqayn lahaa waa ka halkaasi ku xidhan ayay leedahay. xuskiibaa alla ka qaaday waa imtixaan ilaahay inaga nagu eegayo. hooyadan waxay ummadda islaamku meel walba ay joogaan ka codsanaysaa inay nolol maalmeedka ka soo caawiyaan. waa qaadama dhargayaal maalmaha qaar way qadaan jaarka ayaa kolba wixii ay heli karayaan siiya. hooyadan waxay leedahay ummadda islaamka ahow meel walba aad joogtaan ilaahay dartii soo caawiya. hooyada dhibaataysan baan ahay 12 sano halkaa igu xidhan yahay wax aan meel aan ku xidho ugu dhisan ma hayo waxaan dhakhtar ku geeyo ma hayo. hooyo danyara baan ahay walaalaha muslimka waxaan ka codsanayaa meel kasta ay joogaan Soomaaliyeed inay iga soo caawiyaan ilaahay dartii wixii ay igu helaan. ilaahay ma waayin caafimaad iyo adduun inuu siiyo inaga laynagu eegayaa. walaal markaynu isu naxariisano ayaa eebba inoo naxariisanayaa dhibta ilaahay naga kaxaynayaa. ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku gargaarayaa markaad dadka jilsan wax ula qabato. walaal waxaad heli karaysaan telefoonada iyo ciwaanada shaashadeedii ka muuqda ugu soo hagaajiya.